بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم bulshada reer Djibouti ee qaaliga ah ee dalka gudihiisa ku nool iyo kuwa daafaha dunida kala jooga maanta oo Jimco ay taariikhduna ku beegan tahay 24 May 2024 magaalada Djibouti ee caasimadda dalkeena waxaan halkan aan ku qabanay shir jaraa'id annagoo ah saddex xisbi siyaasadeed waaweyn oo culays siyaasadeed dalka ku leh laguna kalsoon yahay saddexdaa xisbi oo ah xisbiga ALD isbaahaysiga jamhuuriga ah ee horumarinta uu hogaaminayo walaalkay gudoomiye aadan maxamed cabdu xisbiga MLD dhaqdhaqaaqa dib cusboonaysiinta iyo horumarinta uu hogaaminayo walaalkay gudoomiye daahir axmed farax iyo xisbiga model dhaqdhaqaaqa horumarinta iyo xorriyadda aan hogaaminayo anigoo ah gudoomiye khadar cabdi ibraahim walaalahay waxaan isugu nimid inaan daboolka ka qaadno oo ku dhawaaqno dhalashada isbaahaysi cusub oo ay ku midoobeen saddexdan xisbi waxaan si miyir ah iyo galqaadasho leh uga wada xaajoonnay danaha dalka iyo dadka waxaan si qoto dheer u lafagurnay xaaladda uu dalku ku sugan yahay ha noqoto mid dhaqan dhaqaale iyo mid siyaasadeedba waxaan sidoo kale qiimayn aanu ku samaynay dareenka bulshada reer Djibouti oo waxaan dhegaysanay rabitaankooda ayaanu dhegaysanay annagoo tixraacana sidii baaxadda lahayd ee bulshaweynta reer Djibouti uga soo jawaabtay baaqii uu mucaaradku u fidiyey ee ahaa in la qaadaco doorashadii bishii Febraayo 2023 waxaan isu raacnay inuu dalku isgoys uu taagan yahay ayna ku soo wajaheen khataro badan ay ka mid yihiin jahwareer siyaasadeed musuqmaasuq hantiyeed oo kor iyo hoosba iswada qabsaday faqri xad dhaafay awood wax iibsiga bulshada oo maalinba maalinta ku xigta hoos u sii dhacaya xorriyadda oo afka la duubtay iyo mustaqbalkiina madow la geliyey markaan arrimahaas oo dhan rogrognay ee khibrad aanu ka soo il suuganay isbaahaysiyadii hore annagoo rumaysan inay noloshu tahay u bacbacdhigidda waayaha adag iyo xambaaridda khataraha waxaan isla garanay arrin aad iyo aad loogu oomanaa oo la sugayey oo ah in la helo garwadeen siyaasadeed oo marin habaabinta ka saara bulshada waxaan ku heshiinay inaan yeelano jiritaan wadareed inaan yeelano talo wadareed inaan yeelano cod wadareed sidaas awgeed waxaan ku midownay isbaahaysi cusub uu magaciisu yahay Bloc pour le Salut National amaba ishaysiga adag ee badbaadada qaran laguna soo koobay BSN waxay ku dhisan tahay mashruuc siyaasadeed aanu ku xayndaabnay 4 tiir 1 ku dhaqanka sharciga qaran 2 dimuqraadiyad taabagal ah 3 cadaalad loo wada siman yahay 4 horumar la wada leeyahay isla sidaas awgeed astaanta BSN waxa horyaar u ah is-afgarad iyo midnimo waxa calaamad u ah gacan qaad xidigi dul saaran tahay oo ay ku wareegsan yihiin 2 laamood oo zaytuuna walaalahay bulshaweynta reer Djibouti waxaanu ka rabnaa inaad dagaha noo wada taagtiin oo jalaq ku siisiin mashruuc siyaasadeedkan aan soo hor bandhigaano waxaan rabnaa inaad qalbigiina noo furtiin waxaan rabnaa
inaad noo furtiin uurkiinna waxaan rabnaa inaad noo soo jeedisiin indhihiinna ayaan rabnaa run ahaantii BSN waxaan fikirkeeda iyo ficilkeegaba uga dhignay asaas mabaadi'da dimuqraadiga ah iyo qodobada ku cad dastuurka Djibouti ee la ansixiyey 1992 bishii Sebtembar 15 waxaanu aaminsanahay waxaan rabnaa inaanu awoodno shacabka Djibouti ha noolaado xornimadu ha guulaysato jamhuuriyaddu ha noolaato dalkuna ha barwaaqowbo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.